faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxay iska horimaad sababay dhimasho dhaawac oo ciidamo ka wada tirsan militariga Soomaaliya ku dhexmaray gobolka Shabeellada Dhexe. Cali Cilmi Salaad ayaa warkan faahfaahinaya. dad shacab ah ayaa ku geeriyooday israsaaseen u dhaxaysay ciidamo ka wada tirsan dawladda Soomaaliya taas oo ka dhacday deegaanka Xaaji Cali ee gobolka Shabeellada Dhexe. 5 qof ayaa geeriyootay oo 2 kamid ah ay ahaayeen haween halka tiro kalena ay ku dhaawacantay kadib dagaal dhaxmaray ciidamo ka wada tirsan dawladda Soomaaliya oo ka dhacay deegaanka Xaaji Cali ee gobolka Shabeellada Dhexe. xildhibaan Cali Saciid oo kamid ah xildhibaanada maamulka Hirshabeelle oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa dhacdadan ku tilmaamay mid foolxumo ah waxa uuna dawladda Soomaaliya uu ka dalbaday in si degdeg ah ay arintan ay uga soo jawaabto. dhacda foolxumo ka dhacda deegaanka Xaaji Cali oo u dhow degmada Cadale waxaana soo gaaray in mataqaanaa ciidankii dawladda ee meesha deganaa dad meesha ku laayeen waa dhacda foolxun. awalan waxaan rabaa dadkii dhintay inaan dhaho inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun, ilaahay ha naxariisto, kuwii dhaawac u gaarana ilaahay ha bogsiiyo. dhacdadaasaa dhacday marka waana dhacda foolxun runtii oo ciidan oo dawlad ah oo loogu talagalay inay dadka amaankooda sugaan inay dadka laayaan waa dhacdo foolxumo ah oo dhacday. wallahi wax kale ma waa un mataqaanaa dadkoon diyaarsaneen ciidanka haddii aysan mataqaanaa dadka inay mataqaanaa amaankooda sugaan aysan u diyaarsaneen dhacdooyinka noocaasaa dhacayo marka waa wax foolxumo ah. dadku waxay ahayd mataqaanaa inay u damqadaan laakiin waa ayaan daro in iyagii ay mataqaanaa dadka xasuuqaan. dhimasho ilaa 5 ha dhacday, dhaawac intaas ka badan dhacay, dhexdooda ay mataqaanaa shaqaaqa ka dhacday. dawladda dhexe go'aan sax aan ka rabnaa dadka mataqaanaa dulumka loo baabi'iyay inay mataqaanaa jawaab cad ka bixiso. ciidamada ku dagaalamay deegaanka Xaaji Cali ayaa la sheegay in dagaalkooda uu ka bilowday goob haweenka ay qaadka ay ku iibiyaan kadib markii la sheegay in isfahamwaa uu soo kala dhaxgalay. dadka dhaawaca uu ka soo gaaray dagaalkaas ayaa loo qaaday isbitaalka degmada Cadale ee isla gobolka Shabeellada Dhexe. ku dhawaad 100 dal ayaa ballan qaaday inay bixinayaan lacagta deynta looga yareynayo ama looga khafiifinayo Soomaaliya. Maslax Abuukar Xaaji ayaa faahfaahinaya warkan. in ka badan 100 dal oo xubno ka ah IMF ayaa ballan qaaday inay bixinayaan lacago gaaraya 334 milyan oo dollarka Mareykanka ah oo qayb ay uga qaadanayaan barnaamijka deynta looga khafiifinayo Soomaaliya sida ay shaacisay hay'adda lacagta adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo IMF. Soomaaliya oo lagu leeyahay deyn gaaraysa 5.3 bilyan oo dollarka Mareykanka ah ayaa waxaa deynta looga khafiifinayaa barnaamij gaar ah oo lagu kaalmeeyo dalalka ugu saboolsan dunida, balse sidoo kale IMF ayaa horay u sheegtay in Soomaaliya si aan laga filayn oo soo kabasho degdeg ah dib u habeen ay ugu samaysay dhaqaalaheeda. bayaan ka soo baxay IMF ayaa lagu yiri maalgelinta maanta loo ballan qaaday Soomaaliya waxa ay u sii dhaweynaysaa inay hesho ansixinta kama dambaysta ah taasi oo si weyn u yareyn doonta deynta guud ee lagu leeyahay una ogolaanaysa inay hesho kheyraad cusub oo lagu bilaabo kobaca dhaqaalaha dalka iyo yareynta saboolnimada sida ay bayaankaasi ku sheegtay agaasimaha maamulka IMF Kristalina Georgieva. tani waxa ay si cad u muujinaysaa in xubnaha IMF ay garowsan yihiin ballanqaadyada xoogan ee joogtada ah ee Soomaaliya ay ku sameynayso isbeddello maaliyadeed inkasta oo ay jiraan caqabado badan ay tireen. gudiyada fulinta IMF iyo Bangiga Adduunka ayaa horaantii bishan ansixiyay in Soomaaliya ay u qalanto in deynta looga cafiyo barnaamijka magaciisa loo soo gaabiyo HIPC ee dalalka ay saaran tahay deynta aadka uga tanka badan ee aan iska bixin karin. si ay u guulaysato ansixinta rasmiga ah Soomaaliya waa inay sii wadaa in ay muujiso hanaanka maaliyadeed ee lagu qanci karo taasi oo wax badan ka caawin karta ayaa lagu yiri sidoo kale bayaankan. xubno ka tirsan midowga Yurub ayaa xalay kulamo lagu xalinayo muranka ka taagan doorashada Somaliland la qaatay xisbiyada mucaaradka ee Somaliland. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya warkan. wafdigii ka socday beesha caalamka ee hogaaminayay safiirka midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Mr. Nicholas ayaa xalay kulan gaar ah la qaatay xisbiyada mucaaradka ee u ciidiyo wadan ee Somaliland. kulankan wafdiga beesha caalamka ay la qaateen xisbiyada mucaaradka oo
oo qaatay wakhti badan ayaa looga hadlayey khilaafka ilaa haatan ka taagan arrimaha doorashooyinka somalilan. labada dhinac ayaa dood dheer ka yeeshay sidii lagu soo afjari lahaa khilaafka muddada dheer soo jiitamayey ee u dhexeeya xukuumadda iyo mucaaradka somalilan kaasi oo ka dhashay arrimaha doorashooyinka. dhinaca kale wafdiga beesha caalamka ayaa la filayaa maanta oo khamiisa inay kulan la qaataan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi kuwaasi oo kala hadli doona sidii loo soo afjari lahaa khilaafka u dhexeeya xukuumadda iyo mucaaradka somalilan oo salka ku haya doorashooyinka somalilan. mahadsanid farxaan. maamulka puntland ayaa sheegay inay diyaariyeen ciidamo la dagaalama dowladda federaalka soomaaliya haddii ciidamada dowladaba yidhaahdeen la geeyo gobolka mudug. axmed maxamed ibraahin ayaa faahfaahinaya warkaan. taliyaha ciidanka booliiska ee maamulka puntland jenaraal muxudiin axmed muuse oo la hadla warbaahinta ayaa sheegay inay diyaariyeen ciidamo ka hortaga ciidamo booliis ah oo la sheegay in dowladda soomaaliya ay geynayso magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug halkaa oo ay ka sugayeen ammaanka guuda. taliyaha ayaa intaa raaciyay inaysan doonayn in waqti xaadirkan dowladda soomaaliya ay geyso gaalkacyo ciidamada haram cadka loo yaqaano ee ka tirsan booliiska soomaaliya kuwa oo fuliya howlgalo gaar ahay. ciidamada haram cadka ayaa dowladda soomaaliya geysay dhowr degmo oo ka tirsan bartamaha iyo koonfurta soomaaliya inkastoo badanaa qiladhaan arrintaasi laga muujiyey. waxa weeye haramcad hadday keenaan shabeel baa u diyaarsan shabeel waana sugaynaa haddee haramcad iyo shabeel waa laga warayaasay kala yihiin marka waa sugaynaa shabeel baa diyaar u ah puntlandna cidna ka yeeli mayso in lagu soo xadgudbo. bulshada waxaan ugu baaqaynaa inay la shaqeeyaan ciidanka dhammaan inay booliis noqdaan meel alla waxay arkaan iyagoo xogtoodu dhowrsan tahay inay soo sheegaan xogtoodana la sheegi maayo. waxaa la rabaa qof kasta waxa uu arko oo uu dareemo ama ka shakiyo inuu soo sheego inay shaqeeyaan in laga wada shaqeeyo amniga baan sidaasaan haddii lahaydmo ugu baaqayaa. ciidamaduna heegan bay u yihiin difaaca puntland dhinac kasta. maalmaha dambe ayaa la hadalhayay in dowladda soomaaliya ay waddo qorsho ay ciidanka haramcadka ku geynayso magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug walow ay jiraan isbedelo muuqda in lagu sameeyey taliska booliiska ee maamulka galmuduga. maamulka degmada garbahaare ayaa sheegay inay biyo la-aan ka jirto degmadaasi. faysal cabduqaadir yuusuf ayaa faahfaahinaya warkaan. wararka ka imaanaya degmada garbahaare ee gobolka gado ayaa la sheegayaa in biyo-la-aan baahsanay soo wajahday shacabka ku nool degmadaasi taasi oo saamaysay noloshooda. qoysas horleh ayaa lagu soo waramayaa in saacadihii lasoo dhaafay biyo-la-aan darteed ugu barakaceen deegaano ka tirsan gobolka gado ee koonfurta soomaaliya. xaalada biyo-la-aantaha ayaa aad u tabtay deegaano kale ka agdhow degmada garbahaare ee gobolka gado. ma jiro ilaa iyo hadda wax gargaar ah ama caawimaad ah ay heleen dadkaasi dhibaataysan. gudoomiyaha degmada garbahaare ee gobolka gado oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa waxa uu sheegay inay jirto xaalad adag oo dhanka nolosha oo soo food saartay dadka ku dhaqan degmada garbahaare iyo duleedkeeda kadib markii ay jabeen ceelashii ku yaal degmadaasi. garbahaare waxaa ka taray muddo 320 cishaha ceelkii biyaha ay ka cabaysay gobolka ahaa bankii iyo matoorkii labadaba cilad baa ku dhacday. hal mar ay cilad ku timid matoorka yaa bankiina gubay matoorkiiba waa jabeen 320 cisho marka dadku ay dacdilan yihiin biyahaan wehel badanna waa jiraayo waqti kuleylaa weeye. meeshuna waa meel oo malo oo biyaheedu waa biyo qarar weye. biyaha waa kambani yaroo magaalada biyaha u hayaa jiray oo aan ceelka biyaha iyo ka shaqaysiiyaan ugu dhiibnay iyagaa qalabkaa ku xiray. inaguna wixii dagaalka iyaga iyo maxaa uraada community wala ku fahmaysan jiray oo wixii lagu tari karo oo kala si ceelka u shaqeeyaan uga howlgali jirna mar walba. hadda waxaa dhacday inuu matoorkii ka jabo meeshii iyo bamkiiba dadkuna waa oomayahay oo biyo la-aan baa ku dhacday. hadda waa aad bay udiban xanuunana way jiraan hadda bilowday intii ceelku uu ciladaas ay ku timid oo biyihii qaraara iyo maxaa uraada markii la cabay iyo biyihii lasoo qaraabasay labadaba. marka dhibaatadaas waa jirtaa saasayna horey baan u gudbinay wasaaradda
maalintii biyaha waa u gudbinay maxaan ku yidhahdaa iyo mas-uuliyiin kaloo dowladda iyo xildhibaano maxaan liigiina waa gelinay ka hadalnay baahidaasay qabaan dadkaas in loo soo gurmadana weeye oo hadda annaga way ka badatay gacanta iyada iyo waxaan wax ka qaban karna uu ka batay hadda cilada meesha ka jirta oo dad technication oo aad u yaqaana iyo qalabka labadaba waa loo baahan yahay qalabka hadda lagu cabeeyena mid meel fog laga keenay buu ahaayo wadanka shiinaha laga keenay ilaahay naga bixiyo gobolka Gado oo hoostaga maamulka Jubbaland ayaa ka mid ah meelaha ay haatan ka jiraan dhibaatooyinka dhinaca nolosha gaar ahaan biyo la'aanta. imikan aan usoo laabana magaalada Muqdisho dood looga hadlayay doorashooyinka qaranka ayaa xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda. Farxaan Maxamed Xuseen mar kale haynoo faahfaahiyo. magaalada Muqdisho xalay waxaa lagu qabtay dood qaran oo loogu doodayay sharciga doorashooyinka dalka oo dhawaan uu saxiixay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. dooda ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, xubno ka socda guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka dalka. sidoo kale waxaa dooda ka soo qayb galay qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee dalka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka iyo sidoo kale waxaa dooda looga hadlay sidii ay doorasho ugu dhici lahayd dalka iyo sidoo kale waxaa dooda looga hadlay sidii ay matalaad u yeelan lahaayeen shacabka ku dhaqan